waxaan qaadanaynaa wallahi basic selector. Okay, waa maxay basic selector? So si aan u aragno basic selector waxaa laga wado waxaan sameynayaa horta waxaan inaan wax aan install gareyno. So si aan wax install gareyno baan wax u qurxino ama nashqadooda waxaan ku bedelno. waxaan u baahanahay wixii aan nashqada ka bedelnayn. So waxaan sameynayaa wixii aan nashqada aan ka bedelnayn. Wallahi juwan tusaale meeshaan waxaa laaliyo wixii rabtaa ku qori kartaa ciwaankaaga no problem dhimana kaliya kan waa tutorial. So marka waxaan isleeyahay hello people. Okay, save aan leeyahay. Okay, waa kaas waxaan sameynayaa marka hito hello iyadana waxaan leeyahay hello waxto waxaan kaloo ku darayaa btag waxaan leeyahay long qoraalkan waa taqaaniin long waxaan leeyahay oo kale by default wixii qoraal isii. So qoraalku waa dheer yahay hal safaan u baxay. So toggle ayaan leeyahay toggle where is toggle way toggle waa kana wardrobe inaan leeyahay wardrobe waxaan leenahay wardrobe ayaa ku dhuftay qoraalku waa kaasa save ayaan leeyahay. kadib waxaan leeyahay refresh sida ujeediyadana qoraalku waa kaas. So marka hadda waxaan arki karnaa wax laga wado basic selector. Okay, basic selector waxaa laga wada horta haddii aan rabno waxaan inaan install gareyno waxaa jiray 3 qaab. qaab koowaad oo ahay inline, kan labaadna waa internal css, kan saddexaadna wuxuu ahaa external css. hadda waxaan isticmaalayaa internal css si macnaha stylekeena iyo html-keena ee hal folder iskula yaalaan si aanan laba file aan u kala aadin si ay noogu fududaato. marka haddii aan rabo inaan style aan siiyo amba aan rabo inaan kuwan aan wax ka bedelo amba colorkooda aan wax ka bedelo waxaan u baahanahay style tag. So waxaan leeyahay style okay open kan waa qaybtan waa open qaybtan waa close tag open tag oo style iyo close tag oo style. So styleka hadda waa sameeyey balse waxaan u baahanahay inaan doorto waa xalaali wixii aan rabo inaan style gareeyo amba aan rabo inaan colorka ka bedelo. sida ujeedinkan waxaan rabo magaceedana waxaa la dhahaa h1. So basic selector asiga waxaa la dhahaa waxa aad dalbanayso inaad magaciisa aad soo qaadato waa intaas kaliya. waxa aan dalbanayo waa h1 magaciisana waa h1. So waxaa la dhahaa basic selector amba element selector labadaas midka rabta ayaa u qaadan kartaa element selector. okay, si aan h1 aan u color gareyno amba aan nashqadeeda aan bedelno amba aan qurxino waxaan u baahanahay inaan doorano h1 maxaa yeelay waxa aan rabno waa inaan qurxino h1 waxa aan rabnana inaan wax ka bedelno waa h1. so waxaan leeyahay h1 okay h1 waa doortay. so waxaan markii aan doortay waa doortay kaliya laakiin waxba kama bedelin. so colorkeeda waa madow waxaan rabaa inaan colorkaan ka dhigo guduud. so waxaan dooranayaa propertyga color. okay waxaan leeyahay weight kaas waa guduud colorkeeda waa kaas waa guduud. okay waxaan kaloo rabaa h2dan inaan iyadana wax ka bedelo. so h2dan sidee wax ugu bedeli karaa h2da waxaan wax uga bedeli karaa horta iyadana waa inaan isla qaabkii aan maro oo aan doorto h2. okay markii h2 aan dhaho hadda h2 waa doortay. marka waxaan u baahanahay inaan qaybta aan galsho xalaalay wixii aan ka bedelayo amba wixii isbedel aan ku sameynayo. so hadda color kale aan iska dooranaya property kale way jiraan laakiin way noo soo socdaan. so hadda colorka ayaan ku soconaynaa waxaa leeyahay color green kaas waa cagaar. so si aad ujeedin colorkeeda waxaan ka dhigay cagaar. okay waxaan rabaa inaan kan aan asigana colorkiisa aan gray aan ka dhigo madow xigeen camal. so maxaan u baahanahay inaan doorto qiyaas. okay waxaan u baahanahay asigana inaan qiyaaso btag maxaa yeelay magaciisa waa btag kan waa h2 kana waa h1. so element selector ama basic selector waa magacii ayaa soo qaadanaysaa kaas ayaa ku noqonaya selector. so waxaan leeyahay b kadib markii aan b aan dhaho color waxaan leeyahay gray
goyn markaan dhaho save ayaan leeyahay way freeze sida ujeedin farta xoogaa madow oo khafiif ayay noqotay so qaybtan waa element sababta so muuqaalka intaas ku egaa video like subscribe